ninka miskiinka ah ee muqdisho ka qaylinaya ee shalayna isaaqa hoday oo yiri dirib bana la yiraahdaa waa u mahmaahayaa maanta cid u jawaabaysana ma jirto si baan ay dhageysta oday la yiraahdo qolow oo adeerkay waa nin raxmad reer khalaf baa wuxuu aaminsanaan jiray ninku qofka hadduu laangaab yahay salaad hadaad ku xirataa isagoo tukanaya intuu timaadada salaad ku xiratid inaysan ka ansaxayn buu aaminsanaa maalin dambe meel tuulaa soo galayo meel mawduucu waa weesaystayo ragcadihii dhexe buu dhexda kala qabsaday salaadii markuu maray safka dambe ku jiray markuu wadaadkii yiri wala daalin uu yiri oo aamintii la sugayo buu wuxuu gartay wadaadkii uu gartay ninka tijinayo gartay meesha waa nin laanga oo jifiir ka dhashay wala daal aamintii inta la oo jarin buu inta booday oo ummadii saa uga soo horlaabtay buu yiri qoodhayn iyo xaradin iyo xiintiin gumeedka la jooyaan loo oran dadkii salaadii maxay aamin dhaamo qosol baa la kala yaaca haata waxaan leeyahay odaga maartan miskiinka ee surre qoodhin iyo xaradin qof daaro oranayo yaan arag intaasan ku soo koobay hadalkay febraayo waa duulayaa caabudu ay galhayaan garaacayaa walaha maantana waa duulayaa wali qodin iyo xaradin xiintii ina gumeed ku dhalay ee qalow sheegay jooyaan loo oran ee qaata marka bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum warahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh wana maanta waxaan ku dul istaagi doonaa Ahmed Geedanaar iyo Xasan oo madaxa istaray haba istiraan maxume Ahmed oo heshiis oo hore u galay oo Xasan iyo Abgaal la galay ayuu fiinkii wuxuu u jiray Dave waa booday looran jiray heshiiskii buu ka soo booday asagoo bilaabay inuu tarxiil ku sameeyo qofkii Abgaal ama Hiraab ama Hawiyaah oo Kismaayo jooga tarxiil qisada waa idin wada qiso qosol meerana ayaa ka dhacday Kismaayo Ahmed baa hadda laga gacan sareeyaa intuu wax tarxiilay qisadaas waa kaga sheekayn doona ilaa ku harbay maanta qisada mawduuca labada aan dul istaagay waxa kamid ah Xasan Sheekh Maxamuud waa ninkii madaxweynaha qaranka ahaa waa Xasan Munaafiqe iyo Ali Jeyta warsame hogaamiyaha ruuxiga ah ee Iran State ayaa maxaas wada tagay farqiga u dhaxeeyay yaa madaxweynaha baa sooranaysa ciidda dhaqaaqday ninkii Ali Jeyta Xasan Sheekh Maxamuud laba xildhibaan oo Abgaal iska soo horeysiyay ayaa irida u istaagay diyaaradda وأدل استاجدونا قرب قدام يدل استاجدونا واحد كم ده موسى السودان يجمعوا يدي بريدة وينيد حلقة أي واحد كم مريان أيضنا وأدل استاجدونا أقول مرة نيكي أحمد محمد إسلامها وجيدا ناره ينيكي حسنها بعض اسكود عيد اسكود عن كهر برا وقت في عم على صوت قاطي أنت فرماشة تشوقي حسنا بقى مضلها أيها واحد شري هشيس دحمري حسن الشيخ محمود أبوكر عمر عداني إيه حسن الشيخ محمود أبوكر عمر عداني وأنا قاعد صلاح وأبجاله أو هرتي أبجاله واحد الله يسقى أفكرتي ديجان كان شبلان إنه نما كان مدلود رول كسيو رول كليه معها حلي بانا كسيو وسيرنا كسيو أيقونا بدل كده أي سمعين أيام إنه مال قشدان ganacsato timaado badeeca keento asaguna cashuur helayo integration halka ka imaanayo oo ayagu ay hawiye matalaya Ahmed waa aqbalay waan saxay heshiiska horaantiisa Ahmed wuxuu fuliyay inuu wasiir ku xigeen ka beeraha u magacaabo Mahad Sheekh waa ninka ka tiinadaysane inuu u magacaabo wasiirka beeraha Abgaal oo aan hatta islaan la qabo aysan ka deganin Kismaayo ayuu ka dhigay asagoo tusaya inuu heshiiskaasi dhabka yahay Abuukar Umar Cadaani ganacsadoodii waa soo tageen Kismaayo waa yimaadeen ayaguna way fuliyeen qaybtoodii oo ganacsigii bay ka bilaabeen dekadihii shahadeer kala soo dageen oo ka ganacsada muddo la seefleefiyay xaalku waa fiicnaa Xasan iyo dhanka kale ninka la yiraahdo Ahmedna waa soo fiicnaayeen waa tii uu timid in al-shabaab la soo kiciyo dadka deegaanka ama macawisleer sameeyo حسن وحنا سميي قبيل كيسي هراب هوية يعني ليه هوية ضمن بقى هو أنا حبي فايدني هراب وكله إنه هو كوقي بيو أحد أو يمد
tiraka 3 jeer rubi siibu yiri wuxuu ugu jawaabay huba daarta inaan ku siiyo waxaad keentaa qabaa'ilada macawisley keenana ku hubeynaya axmed markii la macawisley markii laga hadlayo deegaanka Jubaland ka degan qabaa'ilada hadii la soo kicinayo kale hadda kuwa daaroodka kale hadaan dhaho waa mareexaan harti meela iyo majority ogaadeen markii la yiraahdo nimanka la cawliyaha saddexdaba qabaa'ilkooda isku halayn karo saddexdaba waa mucaarad axmed waa fakaray wuxuu ku fakaray haddaad maanta inta saddex qabiilada soo aruurisid deegaanka degan oo aad hubsiisid hubka ninka siiya uu ku adeegsan karaa oo xasan baad adiga laftiga ku soo jeedin kara birka maali iskama yaclin kadib axmed sideedaba waa diiday wax la yiraahdo macawisley in lagu hubeeyo ugu dambeyn shirkii Dhuusamareeb ayuu axmed hor fariistay xasan oo ku yiri hubka aad beeshaada ka dhalajisay wax iga sii anigu waxaan rabaa iska cishay axmedow haddaad dagaal u socotid bilow marka aad bilowdid baad wax iga helaysaa haddii kale keen macawisley aan hubeeyo hub wallahi aan ku siinin oo bilaan kitaab jaan oo ka maray axmed waxaan aqsan baa Kismaayo ka degay ma ayaa sii horeysayna axmed wuxuu xil ka qaaday ninkii wasiir ku xigeenka ahaa ee beeraha ninkii xilkaasi macna weyn lama lahayn shaqadii uu meesha ka hayo ahayd inuu abgaal asagu matalo deegaanna la siiyay meel yaa tardo oo gooboon u dhow laga siiyay deegaankii inuu magaaleeyo ayuu shirar wuxuu ku qabtay meesha la yiraahdo Kismaayo shirkaas oo ciwaanku siiyay shirka Jubaland ee beelaha Mudulood axmed oo soo carooday oo halkaan fadhiya oo habeenkaas yimid Kismaayo ayaa wuxuu arkay TV-ga wuxuu ka daawaday kiyo shir qabanayo shir Mudulood nacala waaridkiin maxaan dhahay isoo qabtay mid sagaal saaxayna guri lagu dhacay ninkii wasiir ku xigeenka saasa u jeebaysan bal soo hortaag wuxuu gurigiisa ku celinay hebelow waa mid sarkaal oo nabad sugidiisa ah oo reer Cabdullaahi ogaadeen bikaay oo yaarsiyo katiinad ku xiran yaha katiinadaas subax diyaarad la saar waa garta markaas ay xamar uga disay katiinada ka fogeey waxa laga yaabaa inuu diyaaradda dagaal ku dhex sameeyo marka dhulka uu dego katiinada ka furo way ninkii murduf subax bal la qaado diyaaradii uu saaray xamar baa loo wadaa airportkii baa laga dajiyay qisada dhici doonta iyo qasoo ka dhici doona airportkii markii laga dajiyay airportkii Mudulood baa dhoobane abgaal baa dhoobane markii ninkii oo saas u xageysan laga soo dajiyay warma wasiirkaygi Jubaland noo joogay war maxaa kugu dhacay ninkaan soo katiinaday oo waa soo tarxiil aha kana muxuu ahaa waa ninkii soo tarxiin adeerkiisu asaga ay waday furihi me asaga furihi haya war ka furbaali furihi wala soo baxay waa ka furay katiinada ka qaadeen laftigiisii ku jabiyay laftigiisii bay ku jabiyeen ayagu ma tarxiirine halkaan ay qabteen sheelada ku tuurteen axmed oo ahaa dayf waa boodo nimanka heshiiska uga baxay hadda asagii baa wuxuu taagan yahay war ii soo daaya ninka iga haysa ayaa waxay leeyihiin ku soo dayn mayne ninka reerkiisa iyo boorsooyinkiisa soo rar marka hore halkaas axmed baa laga wadaa war axmedow mar dambe qof awsi dhiyo baalkii bal furaha ma beelot ku dhiibtay imaanka Allah ka qaaday aqal xumide halkaas hadda waa hal iyo eber ciyaartu hal waxa iskale beesha Mudulood baa hal leh ciyaartu eberna waxa ma wala eber lama dhashadeen kuwaani tarxiilkoodii xabad ah kan xabad buu leeyahay kuwana laba leeyahay ciyaartu laba eber waa kana ninkii dhamaa ee la soo tarxiilo hadlaya ila dhageyso anigoo lugaha ka xiran gacmahana ka xiran diyaarad la soo saaray maxaan ka duwanahay ummadda Soomaaliyeed waxaan ahay qalbi dhagax 2023 waxaan ahay muwaadin Soomaaliyeed ee xalay xorriyadiisa waayay ee indhaha iyo gacmaha iyo lugaha laga xiray xalay asigoo fadhiya oo indhaha iyo gacmaha iyo luguhu ka xiray yihiin ku bariyay saakana asigoo jeebaysan gurigiisa iyo deegaankiisa iyo meeshuu deganay laga soo tarxiilay waxa uu yiri Soomaaliyay maxaan uga duwanahay qalbi dhagax waa ka duwanta qalbi dhagax daarad buu hadna hawiyaad dayuusiyo qalbi dhagax Itoobiya loo dhiibay adiga gurigaaga lagu keenay maxaa ka maqan qalbi dhagax waa cadow loo dhiibay
oo haddii dalkiisa laga kaxeeyey